soo dhawaada waa muuqaalkii lixaad aynu ka diyaarinayno samaynta iyo dhisidda website waxbarasho kaasoo marka aanu ku samaynayno WordPress inagoo markaa isticmaalayna ama usoo dhex maraynaa softwareka loo yaqaano local. Maanta waxaan rabnaa inaan set up garaysano oon settingka iyo waxyaabahaas oo dhan iska hagaajino tutor LMS pluginka loo yaqaano. Idan marka si aan wax uga badbedelno waxaa imaan doonaa halkan ay ku qoran tahay marka aad localkaaga soo gashid websiteka aad rabtid inaad wax ku dirtid ama ka rabtid inaad dul taagan tahay waxaad taabataa halkan ay ku qoran tahay WP admin si markaan u tagno dashboardkeena. halkan waa arkaysaa wuxuuna keenay dashboardkeena. dabcan waxaan hore isaga nadiifinay hadda wuxuu nagu soo celiyey labadan shay ayagana waa iska qaadaynaa waxaan sameynaynaa halkan screen options kadibna tigtaa labadooda ka qaadaynaa waayahay waa iska celinaynaa kan xir kanna inaga xir markaa halkan nadiif sidaa inoogu ahaato. idan waxaa imaan doonaa tutor LMS maadaama aan wax ka bedeli doono isagaan dul imaanaynaa kadibna waxaan tegaynaa settings. haddii xasuustaan tutor LMS waxaan niri waa balaaginka naga saacidi doona in websitekan uu noqdo mid waxbarasho koorsooyin lagu soo gudbiyo arday iska diiwaan geliyaan macalin uu wax kusoo gudbiyo markaa. idan marka intaanan asaga u gelin ka hor waxaan rabnaa inaan pageska iyo waxyaabaha fiirino ah haysano marka koowaad waxaa imaanaynaa pages kadibna all pages aan dhihi doonaa. marka intaan raani kadib waxaa ujeedaa inta waxaa noogu jira pages 1 2 3 4 5 waa arkaysaa 5 page hadda ayaa inoo abuuran. asalka hore 5tan ka hor 3dan ka hor waxaa inoo abuurnaa websiteka waa kasoo boodnay inaa qaadan ahayd dabcan waxaa inoo abuurnaa labadan keliya midna waa privacy policy isaga waa u baahannahay dabcan waxaa ka dhigi doonaa active midna waa sample page. sample pageka waxaa ku samaynaynaa trash waa iska tiraynaa isagoo dhanba uma baahnin. idan marka saddexdan aa ujeedid dashboard instructor registration iyo student waxay yimaadeen kadib markaan kusoo shubanay pluginka loo yaqaano tutor midkaan markaan kusoo shubanay kadib ay yimaadeen isagay la socdaan yacni. haddii aan u fiirno midkan websitekaaga automatic u samaysta isla markii aad samaysato idan wuu ku anfacayaa hadda settingka aad samaynan ee tutorna wuu anfacayaa salaadligeed hadda waa draft oo websitekeena kama muuqanayo si websitekan ugu soo muuqdo waxaan ka dhigaynaa publish meesha ay ku qoran tahay edit muujeedaa meeshaana ku dhufanaynaa. marka halkaa kusoo dhufana kadib waxaa imaanaynaa kor meeshan ay ku qoran tahay dabcan wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan websitekaaga waxaan sameynaynaa halka ay ku qoran tahay publish aan gujinaynaa haddana mar labaad publish ku dhufanaynaa. waayo hadda websitekan banaanku yaala oo websiteka haddii lasoo galo pagekan si caadi ah loo arki karaa. idan marka waa kasoo noqonaynaa halkan waxaan sameynaynaa intaan istiraynaa kadibna intaa dhihi doonaa waayahay pages kadib noogu celi hadda meeshii draftiga waa laga qaaday waa arkaysaa soo ma halka draft ay ku qoran waa laga qaaday keliya pagekan inuu yahay page websitekan uu leeyahay privacy policy pagekiisa dhan yahay oo keliya halkan ka muuqata.